السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka la kusoo dhawaada walaashin Xamdi Star Cooking oo idin wada muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay hilib hurisa iyo khudaartiisii. markaas hilibkan waxaan gelin doonaa ovenka, waxba biyo kuma soo karin. hilibku waa halkan yaala kaliya taan soo maray, saasna waan u soo yaraa mididan saa ugu soo yara jarjaray si xawaashid iyo waxaas ay uga galaan dhaxda. halkan waxaa inoo yaala khalku aad iyo aad buu cuntada u nadiifiyaa, dhadhan fiican oo u sameeyaa. halkan waxaa yaala xawaashidii aan ugu talagalay inaan hilibka marmariyo. haddana halkan ugu horeysiiyo waxaa igu jira basbaas, halkan waxaa igu jira xawaash kale isku jirjira, halkan waxaa igu jira filfil, halkan waxaa igu jira xawaash duudub keeni khamuunti oo shiidan iyo wax yar oo milixa. halka waxaa igu jira haylacad shiidan, halkan waxaa igu jira barbarooni shiidan, halkan waxaa igu jira xawaash lagu talagalay hilibkii waxaas oo isagoo diyaarsan aan soo iibsaday. intaas hadaan ugu gudbo xawaashida, halkan waxaa igu jira kamsar iyo toon aan isku soo tumay. halkan waxaa igu jira xabad baradha, laba xabo baradha iyo xabad kaarooyo weyn oo aan soo jarjaray. halkan waxaa igu jira xabad basalo weyn iyo xabad barbarooniya. waxba biyo kuma karkarinayo hilibkeena maanta. halkan waxaa yaala aluminium iyo blade-ka cuntada ovenka lagu geliyo. imika waxaan isugu keen soo dardarayaa hilibka iyo xawaashiyada. waxaas oo dhan waan isku soo wada dardarayaa. markaan isku soo wada dardaro ayaabaan isku soo laabanayna insha Allah mar kale. halkan waxaan idinka ilaaway saliid. halkan waxaa igu jirta malgacad iyo badh saliida. hilibkii imika xawaashidii iyo kamsartii iyo toontiiba waan kusoo daray. imikana malgacadii iyo badhkii saliida ayaan ku darayaa. dhexda ayaabaan iska soo wada gelinayaa, si wacan ayaabaan ugu soo wada masaajeynaya hilibka khudradda. markaas ayaabaan halkan inoo saari doonaa baashin hilibka ovenka lagu gelinayo. waan isku soo laabanay mar kale. waa kaas xawaashkii iyo hilibkii iyo khudraddii wixiiba dhexda ayaan iska soo geliyay. si wacan ayaabaan isugu soo masaajeeyay, waayo gacmahan xidhnaamka gacmihi waan iska soo bixiyay, waxbana gacmahayga ma marin. haddana aluminiumka ayaabaan si wacan ugu xidhayaa markaas si aan ugu geliyo ovenka. aluminiumka ayaan ugu soo wada xidhaya si wacan ayaan soo hurinaya. markaan ovenka gelinayo ayaabaan haddana isku soo noqonaynaa. sidaas ayaan aluminiumtii ugu soo wada xidhay si aanay magaranaysaa inooga neefsanin. imikana waxaan ku shubayaa 2 koob iyo badh biyo, waayo mar raba hilibkeena biyuhu inaga galaan. waanigaas ku soo shubay 2 koob iyo badh biyaha. imikana foornada oo inoo sii shidneyd ayaan inoo gelinayaa. oo inoo kululaatay foornadu 200 oo sariir hoos ayaan u geeyay. markaas hilibkeennii foornada ayaa inoo soo geliyay 200 baan u geeyay oo sariir hoos ah. waxaan sugayaa inta inoo soo bislaanayso. bariis baa maanta inoo raacaya insha Allah. bariiska ayaabaan waxyaabihii lagu karin lahaa inoo soo diyaarinayaa. isla socod wanaagsan. waan isku soo laabanay markaan hilibkii ovenka inoo soo geliyay. halkan waxaan kusoo diyaarsaday khudradaas oo ka kooban intan aad arkaysaan. halkan waxaa inoogu jira xabad baradha iyo xabad kaarooya. halkana waxaa inoogu jira bidinjaal aan soo jarjaray iyo barbarooni. halkana waa xawaashiyo, waa filfil, xawaashkii bariiska, basbaas, haylacad shiidan, xawaash duudubkeeni, khamuunti oo shiidan iyo xawaash kale. waa xawaashidii markii hore kale. halkan waxaa igu jira 2 xabo xabuub oo aan soo jarjaray. halkan waxaa igu jirta malgacad iyo badh saliida, kamsartii iyo toontii weli maan tumin. halkan baan kusoo ritayadana mar dhawaan tumanayaa. digsi baan dabka soo saartay. waxaan kusoo ritay 2 xabo basalo waaweyn oo soo jarjaray. saliidaan ku darayaa imika. dabkaan u shidayaa, waan soo yara shiilayaa. markaan soo yara caseeyo ayaabaan isku soo laabanaynaa. asxaabtan isku soo laabanay mar kale. kamsartii iyo toontii waan noo soo tumay. halkan waxaan kusoo diyaarsaday malgacad gurgur ah ama tamaandhada shiidan ah. halkan waxaa igu jira 4 koob oo bariis 3 koob oo bariis ah igu jira. halkana biyo cad baa ii saaran, waa biyihii aan bariiska ku karin lahaa. halkana waxaa igu jira hayl, qorfe, filfil iyo dhagayare.
waan ku shubayaa imika waxaan sugayaa inta in yar noo soo yaro karayaan bariiskan karsanaya anigu waa kan baji waa la yidhaahdaa waa golden basmati rice waa bariis aada u fiican waa markii saddexaad aan anigu imika karsanayo waa basmati aada u wanaagsan maasaanda aada u dhaadheeraanaya weeyaan maasha allah marka khasab maaha inaad kan haysatid laakiinse waa inaad basmati karsatid basashii weli way noo saarantay weli aada umay casaanin inay noo soo yaro casaato ayaan sugayaa in yar hay noo soo casaato waan nagu soo diray bariiska waan soo maydhay markaa intuu in yar noo soo yaro karaya 2 jeer ayaan sugaynaa halkan waxay noogu casaatay basashii midab qurux badan bay yeelatay waan nooga gurayaa imika basashii wataas taasina soo qurux badan soo casaatay manay gubanin midab qurux badan bay yeelatay waan nooga soo guray in yarna dadku ku deysay waxaan ku soo dhigtay qudradii intii sugaynaa intuu in yar noo soo yaro casaanayso markaasaan qabuubka iyo xawaashida iyana kusoo darsanaya bariiskeeni waa kaas wuxuu saarnaa 5 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo meelahaas saa markuu soo yaro karay baan nooga soo qaaday 2 jeer xawaashidii wixiisibana uu leeyahay iminkana dheriga xabuubti waan noogu daray markaas waxaan sugaynaa inta in yar si wacan noogu soo shiilmayso xabuubti biyaheeda goosanayso markaas mayna xawaashida iyo qudrada kale ku darsanaynaa kamsarada iyo toonta dabkoonu yar gaabiyey bariiskiisagu waa diyaar markaas weli hilibku wuu ku jiraa ofinka hilibku wuxuu ku jirayaa ofinka saacad ilaa iyo 2 saacadood inta u dhaxaysa saacadii 40 mirir saacadii 30 mirir kolba intii uu ku bislaado hadhow baan gadaal baan dib idinka sheegaya insha allah khudraddeeni wataas way noo soo yaro shiilatay si wacan bay noogu soo yaro shiilantay xawaashida ayaabaan imikana inoogu darayaa سوري دحين حواشي خطر يمكن كنسرتي طنطايا نوغو soo daray aan isku soo laabanayna suugadeeni waa inoo diyaar kamsartii toontina waan ku soo daray imkan waxaan korka kaga darayaa beemiska akhtarka kadaasadaha ku jira iyo talaagadaha ku jira labadaba waad isticmaali kartaa waa diyaar waan ka daminayaa marada inay xoogna inooga qalasho dheecaan fara badan ay naga yeelato inta dadka dushiisa ku laqsanaysaa halkan waxaa ii yaala quraarad ama quraarada ofinka cuntada lagu geliyo halkanna waxaa iigu diyaarsan timir aan lafti kasoo guray bariiska ofinkaan noo gelinayaa mar dhow insha allah halkanna basashii markii hore aan sameeyey baa iigu diyaarsan isla socod wanaagsan inta ay noo soo yaro qaboobisa suugadu hilibka weli ofinka ku jira imika wuxuu marayaa saacadii 20 daqiiqo 10 daqiiqo ka bacdi baan ka soo saaray aan ka furay aluminiumka markaas aan tusaya insha Allah suugadeeni wataas baan noo soo diyaariyay halkaas aan noogu soo shubay jabcadaas bariiskiina waa kan waan soo wada dhexgelinayaa imika bariiska waxaan ka dhigayaa 2 dabaq oo quriyaata bariiska ayaan dabaq oo koobaad dhigayaa oo cad suugadana dabaqa labaad baan dhigayaa bariiska cad baan ugu sarreysiinayaa wada gaarsiinaya si waxan baan wada gaarsiinaya quraarada maadaama quraaradu aad u weyntahay markaas si waxan baan wada gaarsiiyay imika suugada ayaa baan wada gaarsiinaya هذا صنق دوالك
taas waan soo wada gaarsiiyay suugadiina timirta ayaabaan imika dabaqa labaad ka dhigayaa. bariiskii caddaa ayaabaan imika nagu soo sarreysiinaya. markaan bariiskii si wacan nagu soo wada gaarsiiyo in food kalarkan inoo soo diyaariyo ayaabaan isku soo noqonnaa insha allah mar kale. asxaabi waan isku soo laabanay mar kale. bariiskeenii saasaan nagu soo diyaariyey, basashii saasaan usoo dhigay, food color baankii aan sheegay baan soo mariyey. waa kan saasay u yihiin, waa kaa cas iyo kaa akhtarka. halkana imika waxaan kusoo qastay xabad beeda ama xabad ukuna. dhinacyada ayaabaan kaga yara shubaya intaan u yara bambaneeyo. almunium baan ku xidhayaa, ofankan gelinaya. ma raba inuu casharku inagu dheeraado. markaan hilibka iyo bariiskaba kasoo saaray noo soo diyaariyo ayaabaan isku soo laabanaa insha allah. soo noqod wanaagsan. sidaas ayaan afarta hareerood u yara bambaneeyey oo aan uga shubay beedka. halkana waan kaga soo shubay, halkana waan kaga soo shubay. almuniumku maalimka si wacan noogu xidhaya. wataas waan kusoo xidhay imika almuniumtii. ma raba inay in badan ku jirto waayo suugadii bariiskaba horaan usoo yara kariyey. 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ku jiraysaa. markaas ma naga saaray insha allah. hilibkeeni wakaas ofinkan nooga soo saaray wuxuu ku jiray saacad iyo 45 daqiiqo. aad buu jilcay. in yar imika inta yar qalalas khudradda wataas ay jilcday. hilibku wakaas soo jilcay. in yar uma suginaa inta khudraddu inoo yar qalalayso. asxaabtu waan isku soo laabanay mar kale. bariiskeeni iyo hilibkeeni saas ayuu nooga soo baxay. bariiska lagama sheekin karo kaladhadii waa kaasaan ku daray, khudradii, timirtii, wax walba ku daray saas ay uga muuqdaan. hilibkiina sidaa quruxda badan ee cas buu nooga soo baxay, khudradii wataas. halkana waxaan noogu soo diyaariyay salad. waxaa noo yaala bariiskii. bariiskii waa kaas aragtidiisa kaliya ataa ku deeqaysaba. maasha allah tabaarakallah. ugu horeyn asxaabta waxaan leeyahay haddii aad channelka ku cusubtihiin kusoo dhawaada gacmo furan, subscribe-na saara si aad ula socotaan cashar kasta oo cusub oon soo gelino. haddii idin cajabiyo videogan waxaan leeyahay like saara. asxaabtiina nala sii share gareeya. haddii jiraan waxaad jeceshiin oo aad rabtaan inaan soo gelino channelkeena qaybta commentiga noogu reeba. aad iyo aad baa umahadsantihiin.